كيسا وزير كحفيز كدخل الدولة دجان كصوماليدا مدن محمد عبدي عياش يجي إن دخل جود الدولة دجان كصوماليدا بقول كيف فرتن يصدح دجان كصور السمية عند الدخل الدجان كا وحلا صعطان مددي قدام بيسي أنتي إسبدل كقدم بيسي دجان كنا لابد يكون يكوبي طبنكي لا لابد يكون يتطبيع طبنكي إن حوق الله صاري اسكو في اللاشة جودها الدخل جوده هنا إن حوق الله صاري أو loogu talagalay inaynu isku filaasho gudaheena aynu gaadho muddadaasi aan soo sheegnay waxa xafiiska iyo guud ahaan siyaasadda xisbiga iyo xafiiska xukuumadda lagu hogaaminayo lagu guuleystay ama la helay in korukac dakhli oo baaxad balaaran la hirgeliyo haddaynu soo qaadano isbedelka maalintii deegaankeena ka bilaabay ama sanadii isbedelka ka bilaabay iyadoo soo jeedintu ay noqon doonto ku arki doontaan وحكومة بالعمي دخل الدجان كينينو ها صدق دبيع هالبليون وسنة خي دجان كلوانسية دمان دجان كهيركي سكالدون دموين كا يمام مدارين كمركل اسكودارو هل كسنة دمان تا الله كوني تطبيع طبعا إن كشرنو لا أنسيحية قوله إنه أنسيحيين دخل الدم تطبيع طبعا بليون يلح بقوله مليون هل كواحد كاركيسا كروكع هذا أسر ريا إن لجاري oo boqolkiiba 378% dakhligeena uu aad uga sare maray dakhligii intii hore la soo ururin jiray miisaaniyadda guud ee deegaankeenu isticmaalo ee 40 bilyan ah ee hadda gacanteena ku jirtana boqolkiiba 43% oo kamid ah waxay ka soo baxaysaa oo laga soo saaraa dakhliga gudaheena mustaqbalka dhow hiigsiga xafiiska markaan eegno 2023 waxaan qorsheynaynaa in boqolkiiba 100 ilaa boqolkiiba 90 miisaaniyadda deegaankeenu isticmaali doono ee loogu talagalay in lagu fuliyo baahiyaha kala duwan ee deegaankeena inay ka soo baxdo dakhliga gudaheena ku jira waxaad la socotaan guud ahaan dalka in deeqihii iyo deemihii faraha badnaa ee dalka miisaaniyadiisa ka midka ahaan jiray ay hadda sidoodii hore ayna ahayn deegaan walba iyo dal kastaana oo xooga saaray in isku filaanshaha ama dakhliga gudaheena la xoojiyo korna loo qaado taayadoo laga duulayo xafiisku maanta wuxuu soo diyaariyay kulankan wada tashiga kobcinta dakhliga iyo abaalmarinta hay'adaha dawladda ee hormuudka ka ah 8 bilood ee ugu dambeysay dakhli ururinta halkay marayeen inta haddii aan kaga baxno muddadii ugu dambeysay xafiisku wuxuu xooga saaray in la soo saaro shuruuc kala duwan dakhli inaan ururino waxay u baahan tahay inaynu shuruuc soo saarno ugu yaraan 8 bayaan iyo xeer nidaameedyo iyo awaamiir kala duwan bay golayaasha kala duwan ee deegaankeenu laga bilaabo golaha baarlamaanka golaha fulinta iyo xafiiskuba soo saareen oo looga leeyahay in lagu kobciyo dakhliga gudaheena taas ayaa u sababa in korukac badan oo dakhli uu deegaankeena yimaado ugu dambeyntii xafiisyada gobolada degmooyinka maamul magaalooyinka iyo hay'adaha aan dawliga ahayn ee hormuudka ayaa la guddoonsiiyay abaalmarino